Journalist Association malaa intaasoo baan idinka sheegaya intii ka badan iyada iska sharxi doonta waxayna ugu xigtaa Farduus Maxamed Deere inta koona xigtaa Farduus waxay iyaduna aasaas ka tahay Siraad Initiative Siraad Initiative waxa weeyaan initiative iyadoo ay aasaastay oo ujeedadiisu ay tahay inay ku dhiirigeliso oo ama ay ku waxqabad waxay ku tari kartaa aqoon iyo waxtarba ay ku gaarsiiso hablaha bulshada Somaliland halkaas waxa koonahayga fadhiya soo aragtaan Fawziya Maxamed Ismaaciil Fawziya Maxamed Ismaaciil waa director-ka Somaliland Nurse and Midwifery Association Somaliland Nurse and Midwifery Association waxay bilowmatay 2004 so iyada ay nolosha shargaray doontaa insha Allah waxtarka inta ay ku soo gaarsiiyeen wadanka iyo waxyaabo kale badan dhankan waxay iga xigtaa amuun waxa weeyaan asaasaha Ubax Inspire and Fitness Center oo ah urur isaga qodiisu iyadoo ay aasaastay oo isaguna dhiirigelinaya kaaleen waxqabadka dhanka athletics-ka ciyaaraha haday tahay gym-ka haday tahay kubadaha haday tahay waxyaabo kala duwan waxa oo la fadhiyo iyaduna koonahayga xigta bahji waxay iyaduna xubin ka tahay urur la yiraahdo xudwadaag waa urur ay sugu yimaadaan dhamaan dhalinyarada kala duwan oo ay kaga hadlaan doodwadaag ku sameeyaan mar ay dad soo casuumaan iyo mar iyagu dadka bulshada u soo jeediyaanba arrimaha ku saabsan hablaha haweenka Somaliland haday tahay tacadi haday tahay wax qabad wanaagsan wasa halkan waxa iyaduna ila fadhida Xamdi Raage waxay ka socotaa Orange Movement Somaliland oo xubin ka tahay Orange Movement Somaliland waa urur isaguna u istaaga in uu waxqabad ku soo kordhiyo ama ay ka dagaalamaan ama ay ka dhiidiyaan tacadiyada lagu sameeyo dhamaan haweenka Somaliland haday hablo tahay iyo haday dumar tahayba aad u mahadsantihiin waxaan ku mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad barina caawa aqbashaan xarunta dhaqankoodna kala soo qayb gashaan si bulshadeena wax u barno waxaan jeclaan lahaa inaan su'aasha ku bilaabo maxaad u maleynaysaan muddadii inta leeg Somaliland 2 bilood ka bacdi 30 jir bay noqonaysaa insha Allah marka maxaad u maleynaysaan muddada inta leeg in ururada haween ku soo kordhiyeen bulshadeena Somaliland waxaan ugu horeysiinayaa Fawziya oo iyadu khibrad badan ku haysata waqtiga inta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين بهبين ونكسن magacayga waxa la yiraahdaa Fawziya Maxamed Ismaaciil sida ay idin sheegtay nanto waxaan nahay agaasimaha fulinta ee ururka Nursing iyo Bulshooyin ururkaasi waxa la bilaabay 2004 ilaa hadda uu shaqeynayo dhowr iyo 10 sano inta badan waad ogtihiin caafimaadku qayb uu ka ahaa burburkii dhulka ku dhacay wadankeena ku dhacay iyo dagaaladii sokeeye sidii qaybihii kalaba u burbureen ayuu caafimaadkuna u burburay dad badan oo markaa dib u soo noqday maalintii aanu aasaasnay 5 qof baan ahay oo nurses iyo bulshooyin oo markaa meelo kale oo wadanka gudihiisa ka kala shaqeynayay markaanu aragnay baahida ballaaran ee taala caafimaad markaanu aragnay baahida ballaaran ama dhibaatooyinka haysta shaqaaliye caafimaad ayaanu nidhi maxaynu kaga gudbi karnaa baahida faraha badan markaasaanu isla qaadanay malaha inagoo urur samaysana oo xoogageena isu geyna oo inagu wax qabsana oo dawladeena taageerna oo isbarbar taagnumayna wax ku qabsan karnaa ama wax badan kaga bedeli karnaa dhibaatooyinka jira dhimashada hooyadu waxay ahayd 1600 boqolkii kun ee dhashay markaa xogtiina la siiyey dallaankuna ka darna marka haddana wadankeena oo lagu qiyaaso 3 milyan iyo 800 inuu population-keenu yahay waxa joogay markaanu goboladii oo dhan soo marnay balaynu u shaqeyno umulisooyinka iyo nurseska ururka umulisooyinka iyo nurseska xagee joogaan waayo maxay tababar u baahan yihiin maxay barteen halkay kala joogaan waanu soo marnay 6 gobol ee waaweyn ee Somaliland si aanu u ogaano bal hadda baahidoodu waxay tahay iyo dhibaatada haysatay iyo waxay wadanka u qabanayaan iyo tiradooda waxaanu ogaanayba horta umulisooyinka baynanu gabiga dhan 3 milyan iyo 800 ee u baahan 4,000 oo umuliso ugu yaraan inay 100 umuliso wadanka joogaan oo dib ugu soo noqdeen intii kalena wax dhintay iyo wax dhoofay oo haajiray yihiin
marka waxaanu samaynay in qaarna inta kalena intaan waxaanan samaynay u gelin waxaan ogaanay intan soo noqotay qudeeda dhowr iyo 10 sano dagaalada socdeen inaanay wax aqoon kororsiga helin iyo tababaro iyo wax loo sameeyo markaasaynu bal aynu dedejino inaynu samayno manhajyo in tababarada la kordhiyo in shaqaalo badan la helo neeska qudhoodu may dhaamin 200 bay ahaayeen marka iskuulka adnaa ugu horreeyey kan Hargeysa ku xigay ka Burcaa ku xigay haddana kii Boorame ayaa la furay haddana waxaa la furay kii Lascanood marka waxaynu helay dad inoo soo baxa intii ururku jiray malaha waxaanu samaynay 10 manhaj oo mid waliba kaadir gooniya mid diploma ah mid bachelor ah mid master ah mid kale oo top aba oo dad neersista oo mulisa laga dhigay way badnaay sababta aanu u kordhinay tababaradana baahi badan baa jirtay khaasatan meelaha tuulooyinka iyo dibadaha intii yareeyay joogtayna magaalooyinka ku soo haddaba nasiib wanaag maanta halkaynu maalinta 100 ka haysanay maanta 1500 baynu haysanaa laakiin wadanka kuma filla 4,000 oo umulisaynu u baahan halkaynu ka haysanay neerka 200 maanta 2,000 baynu haysanaa laakiin weli kuma fillo hawsha waa in la sii wado dhimashadii markaa ahayd 1,600 boqolkii kun ee dhashaba maanta waxay maraysaa 369 waan wax ilaahay loogu mahadnaqo laakiin ma aha uun dee annaga halkaa gaarsiinay keliya kuma faanayno dad badan baa wax laga wada shaqeeyay oo la isugu tagay haday wasaaradda caafimaadka haday ururada kala noqoto haday isbitaalada noqoto haday hay'adaha caawiyo noqoto laakiin wax ilaahay lagu mahadiyo haddaba kaalinta uu ururkani ku yeeshay bulshadeena ama ay ku yeesheen dumarku guud ahaan waxaan oran karaa mid hoosa iyo mid dadbanba way jirtaa mid hoose way ku leeyihiin oo waliba kaalin weyn oo muuqata ayay arrimaha bulshada dumarku ku leeyihiin intii wadanka lagu soo noqday ee dagaalada laga soo noqday waxa muuqatay kaalinta dumarku leeyihiin inay kaalin weyn oo muuqata tahay oo waxtar leh hadday noqoto xagga dagaalada ilaahay dumarku wuxuu ku abuuray naxariis oo nabadgelyadii iyo dhibaatooyinkii qayb weyn bay ka qaateen dumarku aynu wada ognahay bulshadeenu ogtahay ta kale dadkii dhibaataysnaa ay soo noqonayeen cidda xogtooda ogogaalka ah u naxariisata baahidooda soo gudbisaa dumar bay u badan yihiin hadday noqoto waxbarashadii hadday noqoto dhaqaalihii guriga hadday noqoto dhaqaalihii kale hadday noqoto caafimaadkii qayb weyn bay dumarku ka qaateen waxay jirtaa mahmaah baa jirtaa soomaalidu haddii jeer ku mahmaahdo taasi tii tooskayd waneen ka hadleedka dadban marka loo yimaado waxaynu ognahay ninka soo geesiya oo waddanka u shaqeeya oo u talinaya dabeel dumaraa ka dambaysa oo hadday noqoto xag dhaqaale isku kabidiisii kii guriga hagbad yar gashaya wax isu keentaya iyada ka dambaysa hadday noqoto talo oo waliba talo wanaagsan oo ogtihiin oo nabad iyo naxariis ku dhisan ka dambaysa waa qof dumar 30 sano ee maanta dhibaatadu dhacday dhaqaalaha waddanka waad ogtihiin qaybta ay kaga jiraan dumarka hooyadu iyadoo subaxii ka lahday oo khudrada iyo hadday doonto meel la fadhida ayay haddana galabtiina dhaqaalihii ilmaha iyo guriga ayay gelaysaa waxa kaloo anigu dareemay intaan ku jiray howlahan bulshada arrimaha bulshada iyo caafimaadka waxaan dareemay dumarku inay uga jajaban yihiin oo uga faradhuudhuuban yihiin ragga runta markaynu isu sheegno waxa ka jira xaafadaheennii iyo bulshadeennii iyo dadkeennii waxaa haysta waayo xaafadaha dumar baa jooga dumarku way sheekaysanayaan way is og yihiin jaabku wuu isu wareegaa kuwa markiiba wax ka qabtay u dadaalaa waa dumar
afar shan arrimood oo nusoo taagnaa oo afartuba arrimaha bulshada yihiin ama reero carruurtu ka waarantay ha noqdaan ama ha noqdaan kuwa kaloo dhibaata haysato ama hablo la faraxumeeye ha noqoto cidda kow ka ahayd ee markiiba lacagta keentay dumar bay ahayd shantaa aan ogaaba qof nini waxba kuma darsan anigu ma odhanayo dumarku rag wax ma qabtaan bulshadeenu lab iyo dhadig bay ka samaysan tahay qayb waliba rool iyo kaalin bay leedahay laakiin waxay sheegayaa sanadba sanadka ka dambaysa kaalintii dumarku inay soo korodhay in adeegga dumarku bixiyaan iyo dumarka ama liidgareeya ama hogaamiye baan ujeedaa ama aasaasa ururada inay kaalin weyn kaga jiraan arrimaha bulshada hadday noqoto waxaa loo yaqaano SGBV gender based violence noocu doonaba ha noqo hadday noqoto arrimaha gudniinka ee hablaheena aafeeyey hadday noqoto arrimaha xun ee falka xun ee kufsiga iyo dilka iminka dumarkii loo geysto kaalin weyn bay habluhu ku leeyihiin laakiin waxaynu kaga baxaynaa inagoo gacmaha isqabsana rag iyo dumarba weliba dhalinyaradeenna waxaan faraya u fiirsada balalkan xunxunee waddankeenna kusoo kordhay mas-uuliyad bay naga saaran dhalinteenna ama wiil la faraxumeeye ha noqoto ama gabadh la faraxumeeye ha noqoto waxa weeyaan u fiirsada oo wacyigeliya oo wiilku wiil u wada hadla oo gabadhku gabadh u wada hadla oo dhibaatada ka hadla iminka annagu ururka iyagu 8 gobol 8 xafiis oo la shaqeyno ka shaqeeya arrimahaas baa jira ma qabano uun tababar caafimaad keliya tababar caafimaad annagoo qabanayna ayaanu haddana waxaanu farnaa inay badbaadada iyo taageerada iyo adeegga ay bulshada u fidinayaan neska iyo midwife inay hagaajiyaan oo dadka ay keer tayala siiyaan marka waniga idiin sheegaya kule 8 gobolba waxaanu ku leenahay xafiisyo la yidhaahdo one stop center ama baahikoob afartaa maxaan u qabanaa waxaanu keennaa legal advisorkii qofkii psychosocial counselingkii iyo la talintiisii ilaa dhibbanihii dhibbanaa ama victimkii waxaa kaloonu siinaa 2 midwife mushahar oo wax kala qaban ee gabadha dhibban ee loo keeno ama ilmaha yar ee dhibban ee loo keeno markiiba si degdego ugu adeego xaaladooda gudbiyaan ururo badan oo kale oo nagala shaqeeyaa way jiraan laakiin waxaa one stop center loo yidhi inuu qofkii dhibbanaha adeeggii u baahnaa uu halkaa ka wada helo marka anigu horta halkaasaan iminka ku joojiye waxaa kala ha dambeeyaan hablaha walaalaha ee halka fadhiyana kaalintoodan siiya aad baad mahadsantahay Fawziya wadaadkiisaan Fawziya xog badan bay haysaa inay la wadaagaysa caawa iminka waxaan jeclaan lahaa inaan u wareejiyo Farduus waxa nala shargaraysa adiga ku dhaado dhalinyaro ahaan horumarka aad leedahay kaalinta aad leedahay wuxuu ka jiraan ururada haweenka horumarka bulshadeena Soomaaliland السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي بهذا البرنامج سلامية. سكارة حنا سلامية. مرتدى عاو برنامج قيمة نقلة. حركة رقم كان آد بنقوم هذا علينا عبد الرحمن وبرنامج سيفي عنو بيش قينيا الله صح لينا. سجنا سكارة نقوم هذا علينا. أنت مركن كي ما دو وحنا كنا بيشي صدحات لما كنا يكون لا تنكا بيشان مالك من وحلا استين نقطة مالتها لحسوق وحويان international women's day oo lagu xuso maalinta haweenaha adduunka wax qabadkooda isla markaana lagu soo bandhigo baahiyahooda halkaana xalal iyo way forward laga wada sheekaysto dhammaan hablaha reer Somaliland hambalyan u diraya waxaan sanadkan waxaan rajaynaynaa sanad khayr qabo inuu Ilaahay nooga dhigo hadafyadeena aan gaarno taas waa taas su'aasha haddaan ku soo noqdo kaalin noocee bay kaga jiraan run ahaantii ururada bulshada marka si guud aan uga hadlayno kaalin weyn bay dowladnimada kaga jiraan kaalin weyn bay kaga jiraan dalka horumarkiisa waxay kaga jiraan inay dowladda kaabaan ay dowladdu waxay ka tagto xasuusiyaan ay kala shaqeeyaan horumarka bulshada waxyaabaha ay ka shaqeeyaan ururada bulshada waxaa ka mid ah nabadda ka mid ah dowladdu nabadda keligeed ma sugi karta haddaan ururada bulshada gacan ka qaban
stakeholder weyn bay ka yihiin waxay ka shaqeeyaan ururada bulshadu dib u dhiska dowladnimada caafimaadka human rightska dhammaan waxay ka shaqeeyaan ururada bulshadu horumarinta bulshada ee qaybaha kala duwan si gaara haddaba hadday haweenka noqoto haweenka reer somaliland aasaaskii somaliland ama dib u dhiskii dowladnimada somaliland qayb bay ka ahaayeen waxaa jirta ururka haweenka somaliland dalada ururada haweenka somaliland ku midoobeen nagaad haddaynu eegno aasaaskeedii wuxuu ahaa 1990 weliba xilliyadii hore dowladnimada qayb bay ka noqoto oo intaasba haddii noqoto dumar wasiire ah oo la rabo inay xubnaha wasiirada ka noqdaan iyagaa laga soo qaadanayay hadday noqoto arrimaha dumarka marka laga hadlayo iyagaa loo tegayay hadday noqoto nabadda marka inay dumarka laga empower gareeyo ama lagu soo daro task force-yada ka shaqeynaya iyagaa laga soo qaadanayay ururada haweenka kalena waa laga soo qaadanaya laakiin nagaad waxaan xaseeyaa waxay tahay waa dalada keliya ururada aan dowliga ahayn somaliland dumarka ku jiraan waana dalada ugu weyn soo faarintaan ognahay intayna dambe waan iska saan da-deena waa wax laga yaabaa dumarka nagaad marka loo eego aan uga yarnahay ay organisationadeennana uga yaryihiin kuwa nagaad ku jira markaas ururada haweenka somaliland waxay ka qayb qaataan voice bay u yihiin horta haweenka somaliland inay baahidooda soo gudbiyaan inay iyagu laftirkooda istaageeraan aqoon ahaan iska taageeraan aragti ahaan wadaagaan islamarkaana ay dowladda kala hadlaan waxay uga baahnaayeen ana waxaan aaminsanahay kaalin weyn bay ku jiraan ururada haweenku dowladda ayaan odhan karaa way gabtay kaalintii haweenka inay qaadato laakiin kaalintaa ay qaadatay waxaa buuxinaysa ururada haweenka tusaale yar haddaan soo qaato covid-19 baa hadda inagu dhacay sanadkii hore ayuu dunkoo dhan saameeyey urur ka mid ururada haweenka Siraad Initiative oo ka mid yihiin ay ka shaqeeyaan hablo reer somaliland waxaa qaatay rool aad u weyn kama shaqeyno anagu keliya inaan dowladda muqaaridno kama shaqeyno environment keliya humanitarianka laftirkiisana waan ka shaqeynaa waxaan qabanay inaan qaybino face mask kan anaan ka caawo dhammaantiin wada xidhannahay intii halka joogtay panelka anigu halkan baan dhigtay waan haystaa laakiin ay ahayd inaan ku wada xidhanno ayaanu qaybinay waxaanu gaarsiinay dadkii ugu mudnayd in ahayd in la gaarsiiyo oo ah hooyooyinka sariibada fadhiya suuqa jooga ee aan aqoon ahaan wacyi ahaan aan wacyigoodu gaarsiisnayn heer ay covid-19 ka warqabaan vulnerable-na u ah inuu xanuunkaasi ku dhaco 250 hooyo ayaan gaarsiinay face mask-ga dowladdu may gaarsiin hay-ad kale international aan ahan arrintaa may qaban urur haween oo urur yar ah oo urur bulsho ah ayaa qabtay marka kaalinta ugu yar ee bulshada u qabtaan ururada haweenku waxaa ka mid ah in xitaa mararka qaar ka shaqeeyaan arrimaha humanitarianka ama bilaadanimada ah intaasaan kusoo koobaya oo mahadsantiin aad ay kurdiisu mahadsan tahay kurdiisu wataa dhan kasta idinka tusay waxqabadka iyo kaalmaha ay ku leeyihiin ururada haweenka bulshadeena su-aasha labaad ee aan rabo inaan iminka ku wareejiyo warda waxa weeyaan maxaad waxqabad intee leeg waxyaabaha waxqabadka la taaban karo journalism concept bay aad tole aad iminka la wadaagi kartaad is leedahay ururada haweenka bulshadeena ay kusoo kordhiyeen maxaad u malaynaysaa aad mahadsantihiin dhammaantiin waan salaamayaa horta waxyaabaha ay horumarka qaybta ay ka yihiin maamo iyo fardisba way ka hadleen marka inagoo ku saleynna waxyaabahaas waxaa jira haweenku waxyaabo badan oo u qabsoomay ururada iyo shaqooyinka ay qabanayaan ururada haweenka horta inta badan asaaskooda baahi baa ka dambaysa marka ay arkaan baahi bulshada dhexdeeda ka jirta ama ha noqoto dhinaca caafimaadka ama ha noqoto dhinaca waxbarashada ama ha noqoto dhinaca xuquuqda aadanaha ama ha noqoto horumarka kale bulshada oo wax baahi ku salaysan marka hore in la abuuro urur bulsho waxyaabaha ay qabteen waxaa ka mid ah muuqda horta bulshadeena marka loo eegayo marka laga tago dhibaatooyinka guud ee la wada qabo bulshada ay wadaagto waxaa jira waxyaabo badan oo haweenka u gaara waxyaabaha waxaa ka mid ah kufsi waxaa ka mid ah gudniin waxaa ka mid ah garaacis iyo tacadiyo kale oo tiro badan haweenku waxyaabaha ay abuureen ee muuqda waxaa ka mid ah in laga hadlo gudniinka fircooniga bulshadeena ceeb bay yahay idaacadaha iyo tviyadii warbaahinta markay ka socoto waa la iska damin jiray heerka laga gaadhay maantase waxaa la marayaa in ururadu ay soo gaadhsiiyeen haweenku hormuud ay u yihiin in horta wax caadiya loo arkay in laga hadla marka koowaad marka labaadna in ay aada isku dhinto oo hadda meelaha magaalooyinka ay adag tahay in laguba sameeyo gudniinka fircooniga inkastoo weli meelaha baadiyaha ay kasii jirto
marka taasi waxyaabahay ka mid tahay waxay ka mid tahay waxyaabaha kale muuqda ee haweenku waxaa ka mid ah ay abuureen kufsiga lagama hadli jirin inan maanta markuu kufsi ku dhaco waxa ugu dhow ee loo samayn jiray waxay ahayd in qofkii dhibaatada u geystay loo guuriyo laakiin ururada haweenku ay hormuudka ka yihiin iyagoo ka shaqaynaya maanta waxaa la marayaa in xeerar laga sameeyo in dadka kufsadayaasha la xidho in la xukumo in iyadoo weli aan la gaadhin halkii la rabay oo kufsigina dee aanu joogsan haweenkuna weli aanay ku dhiiran in gabadh kastoo kufsi ku dhaca ay ka hadasho oo ay soo taagto ay maxkamad tagto haddana ugu yaraan in qaar badan oo ka mid maanta ay hadlaan waxay soo kordhiyeen in la diiwaangeliyo in dhibaatadii la ogaado in bulshada lala wadaago sidoo kale haweenku waxyaabaha la taaban karay sameeyeen waxaa ka mid ah in ay gartaan inay xuquuq asaasi oo shakhsiyaada leeyihiin inay ganacsi geli karaan siyaasad geli karaan dhaqaale abuuri karaan wax baran karaan waqtiyadii hore waxaa jirtay haweenka waxbarasho looma diri jirin laakiin maanta waxaa jirta kumanaan hablood oo jaamacadaha ka soo baxa waxaa jira maanta hablo macallimiina waxaa jira hablo siyaasadda galay qayb weyn waxaa ka ah shaqada ay haweenku qabteen oo ah in bulshadii la wacyigeliyo in haweenkii kartidooda loo sheego in xuquuqday leeyihiin la tuso oo waxyaabaha ugu ballaadhan ee la qaban karo ee muuqda marka de wax badan baa jira oo muuqda oo la taaban karo haweenku ay qabteen laakiin waxaan u dhaafayaa inta kale hablaa kale aad baad umahadsantahay warda waxaan imika jeclaan lahaa inay midyo laba bahjina igu soo koobto waxay iyadoo dhan kale ka eegaysaa waxyaabaha ay u malaynaysa inay yihiin wax qabad la taaban karo oo ay soo kordhiyeen ururada haweenka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سؤال كلي دم والبا ولا قد تعطيه ضد إيجا خبرات بدل إيه ضد إن بدل كسر شقيني بيجي جوابين لكن وحيابها ورود وقومهم سن ورود هواين كبشد أي سكر بيه وحن أوران كرا إن يدردر بدل جليه إن مواضيع فربضنايد ولا دافع شري أما لسه أجمر شري وخلا إن هوصل وأقول نقضي ولا أجي ولا أقعدي إنه كي هاي شيء أدوي bulshada ama society-gaba saameyn inagu leh ama waxyaabo badan aynu odhan karno mil dushii gabadhayay ahaydo iminka ay noqotay inaynu intaynaan arrimaheennii bulshada hoose inaynu horta xallino ka hor intaynu meel soo istaagi lahayna odhan lahayn dalku waa sidan ururada bulshadu kaalin weyn bay ugu jiraan bulshada waa sababta ay ururo badani u jiraan waxaanay ogyihiin baahida jirtaa in aanay dawladda kaliya taa haddii farta lagu fiiqo dee waxaa jira maamul daadejin wax la yidhaahdo oo ururadu waxay u taagan yihiin waa maamul daadejintaasoo waxyaabihii dawladda ka yara dhaca in ay ururadii ay saxaan marka baahiyo badan way dabooleen dhaqaale ahaan hadday noqoto hadday waxbarasho noqoto hadday noqoto siyaasad iyo iminka dee dumarkiina xoog ugu soo biireen hadday sidoo kale noqoto dhankii waxbarasho siyaasad dhaqan iyo dhaqaaleba intaaba way dabooleen iyo in badan oo kale oo aynu ognahay oo ururo walbaaba goonidooda ugu taagayin marka laga yimaado as general oo kale urur markaynu isku qaadno marka laga yimaado ururada qaar baa imka siraad oo kale qayb gooniya baa laga yaabaa inay maxaa la yidhaahdaa ay target samayso oo ay tiraahdo issuegaas wuxuu u baahan yahay in ururo badan ay wada sameeyaan maahee in aan bal horta ururka iyaga aan xagga kasoo dhisno bulshada ubaxsan taro amuni ag fadhida laftirkeeduna qayb bay ka qaadatay ee bulshada oy ka taageertay waayo ururada haddaynu nidhaahno nagaad oo kale ama ururadii kale ee jiray wixii baynu wada deynaynaa activity-gi baa ku badanaya marka waxaan leeyahay kaalin muhiim horta ururadu ku jiraan waana meelaha keliyaata ee dalka laga eegayo inay waxqabadkiisu uu soconayo inahaasan kusoo koobay aan ku dheeraanahay aad baad mahadsan tahay waxyaabaha carqabadaha ugu waaweyn aad leedahay way la kulmaan ururada haweenku especially kuwa ay aasaaseen maxaa ka mid ah bismillah ilmaha kule aad baad mahadsan tahay run ahaantii haddaynu nidhaahno caqabad baynu xisaabinaynaa weliba special caqabad dumar caawiyo beri ka gayoon mayno horta run ahaantii kolley caqabada foosiina way iga soo horreysay idaa iga dabamari doonto insha allah laakiin caqabadaha intii aan ku jiray ururada bulshada khaasatan ururada dumarka laftigooda iyo caqabado badan way jiraan caqabadaha waxaynu tilmaami karnaa dumarkii in aanay horta ku jirin decision makingkii ama meelihii go-aamada laga qaadanayay dowladda dowladdeena waxaan ognahay markasta inay dowladdu tahay meesha u dambaysa lagu laabanayo caqabada labaad waxa weeye dumarkii in aanay intooda badan dhaqaale ku filan haysan ururadii hadday noqoto hadday hal abuuradii laftigeeda noqoto
sidoo kale waxaan carqalad ka mid ah carqaladaha aan u soo joogay ka mid ahayd xaruntan aanu aasaasnay ubax inspire fitness center dabayaaqadii sanadkan waxaanu qaban qaabinay koob maxaan idhaha kubadda cagta hablaha waynu ogeen kubadda cagta ee ragga wixii kharash ku baxay wixii dhiirigelin ku baxay wixii qaylo ka baxday bulshada instil haddana dumarkii lama hadal haynin markaan anagu isxil qaadnay in hawshii gallay innagoo xitaa ogolaansho ka soo qaadanay dowladda ayaa last minutekii maalinta ciyaartu bilaamaysa 3 galabnimo 9 aroorimo ay dowladda joojisay dhaqdhaqaaq badan aanu samaynay dumar badan oo run ahaantii xaggan aan uga mahad celinay maama Fawsiya Aamina Milko dumarkii waaweynaa hablo badan oo loo yaraa oonu maalintii muujinay solidarity badan oonu dhaqdhaqaaqnay haddana wax laalis ka suurtoobay ma jirto taasina waxay ku tusaysaa carqaladda ah decision making dumari haddaanay meeshii kuu joogin inkastoo wasiir shugud laftigeeda aad noola dadaashay laakiin haddana waxay ku tusaysaa in voicekaagu aanu meel gaadhin haddaanu decision making meesha kuu joogin marka run ahaantii carqaladaha intaasaan kusoo koobaya laakiin way badan tahay kama geeyoon karno aad baad mahadsantahay amour Fawsiya dhankaaga iyo muddadaad soo joogtay maxaad isleedahay waa carqaladaha horta runta markaynu sheegno wax badan oo improvement waa la sameeyey xagga arrimaha bulshada waddankeena laakiin caqabaduna aad bay u badan yihiin sida ay sheegtay inantu caqabadaha naga hor yimaada howlahan arrimaha bulshada markaan ka shaqaynayno waxa ugu badan markaan doonaynay wax la bedelo runtiina waxyaabaha caynkaasoo kale ah marka la doonaya in la bedelo ay u baahan tahay in siyaasad qaran laga yeesho in shuruuc la sameeyo oo shuruucdii la sameeyey hir galaan oo lagu dhaqmo ayaa dhibaata naga haysataa for example iminka waanu samaynay siyaasaddii shaqaalaha caafimaadka ka mamnuucaysa inay wax gudaan haddaanu samaynay annagu decision makers ma nihin sida ay sheegtay inantu laakiin ma soconayso waxaad arkaysaa meel dhukun baa laysu taagayaayo wixiiba dhaqaaqi maayo imise sannadoodun baa daba soconaysaa waa daashi hadday sharci noqoto gudniin hadday noqoto tu aad shaqaalo ku xakamaynayso hadday noqoto waxyaabo kale oo kufsigaas xeerkii kufsiga noqoto hadday waxyaabo kale oo lamida noqoto caqabadana hortaagan waxa weeye inaanaan anagu ahayn dadkii go-aanka lahaa ee tallaabo ka qaadi lahaa ee socodsiin lahaa caqabadaas horta wayna hortaagan tahay waana dhibaatadii ugu weyneyna haysato ta kalenu la kulanno arrimaha bulshada markaanu ka shaqaynayno waxay ku odhanayaan waxaad sidataa fikir dibadda laga keenay wax dad kale kaa soo dhaadhiciyeen ayaad xambaarsan tahay for example gudniin baad ka hadlaysaa ma fikir dibadda inagaga yimi baaba dumarow mise anuu i taaftay oo walaashaybu taaftay oo inantaydu taaftay oo hooyadaybu taaftay oo habaryartaybu taaftay mise cid kale iga soo dhaadhicisay caqabadaas wayna hortaagan tahay kufsigii anigu inan baan u raacay booliiska maalin oon la joogo wuxuu ku leeyahay intuu arrinkeedii inantii dedejin lahaa waxu dhammayn lahaa buu ku leeyahay oo waaba 16 jir maxaa loo lawaynaya waaba gabadh 16 jir haddii la fursaday haye waa dadkii inoo hayay inay sharci ilaalinta iyo ammaanka iyo nabadda iyo dhibaatooyinkaasi way farabadan yihiin aad bay u farabadan yihiin anigu waxaan qabaatee inaynu dhibaatooyinkaas ka tallaabsan karno wax ka qaban karno haddii dumarku ay galaan kaalmo ay wax ku qaban karaan oo dee meelaha kaalmaha sarsare ee go-aanka lagu gaadhayo ee talada lagu goynayo inay dumarku ka qayb galaan laakiin aad bay caqabadaha arrimaha naga haysta arrimaha bulshada waxyaabihii aanu doonaynay inaynu fulino oo dalkeenu horumarino hortaagan way badan yihiin laakiin kuwaasaa ka mid a aad baad mahadsantahay Fawsiya iminka waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo dhaweeyo xamdaay waayadan dambe waxaa aada usoo badanaya ururaday aasaasaan ama yagleelaan haweenku ama ay siday ka qayb qaataan ama iyagu abuuraanba maxaad u malaynaysaa waxyaabaha ugu waaweyn sababaha ugu waaweyn ee keentay inay iminka taasoo dhan ay haweenku rabaan inay waxqabadka Somaliland wax ka taraan ama ay ururo u aasaasaan qaar ay iyagu leeyihiin iyo qaar ay reergareeyaan bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah aad baan u salaamaya muqdisho taran kasoo qayb gashay si gaar ah waxaan u salaamaya cid kastoo ku lug lahayd barnaamijkan
halkan iskugu yimid. Si guud haddaan horumarkii ay dumarku ay ku lahaayeen bulshada haddaan dib ugu noqdo, ilbaxnimada adduunku gaadhay iyo kaalinta ay yeelatay in dadku ay wax bartaan baa waxaa la ogaaday in dumarku ay kaalin muhiima ku yeelan karaan horumarka bulshada. Soddonkii sano ee u dambeeyey waan dib baan ugu yaro noqonay waa soo soddonkii sano ee u dambeeyey Somaliland jirtay dumarku waxay noqdeen lafdhabarta horumarka iyo dhaqaalaha, waayo dhaqaalaha ugu badan ee waddanka Somaliland soo gala waxaa soo geliya dumar. Dadka ugu badan ee cashuurta laga qaadaa waa dumar. Sidoo kale dadka ugu badan ee dadka waxbara waxaan aaminsanahay intayna halkan fadhida 99% cidda waxayna wada bartay inay soo kala waabgaraysay inay dumar yihiin, hooyooyinkeen inay ka qayb qaateen waxbarashadeena. Marka muhiimadda ay leedahay inay dumarku ay sameeyaan ururo halkaasaad ka garan kartaayoo basically bay Somaliland lafdhabar ugu tahay inay dumarku intay wax barteen ay dhaqaalo waddanka soo geliyeen, horumar wanaagsanna ay ka gaadheen. Haddii aan ku noqdo su-aashaada horumarka ay dumarku ay horumarka su-aashii ku celin sababta aad imika ugu soo badanayaan ururada dumarku yagleeleen. Sababta ay u soo badanayaan horta waxaynu ogaanay in dumarkii ay haddii dawladda aynu doonayno inay dumarkii ay ka qayb qaataan inay muhiim ay tahay, xataa iyadoo caalamku aanu inagu baraarujin, haddana markii ay iyaga laftigoodii ay is eegeen bay waxay garteen inay halkan ay dumar ka maqan tahay, inay qabyo stiil ay weli wax yihiin. And then dad dumar badan oo wax bartay ayaaba waxay ku baraarugeen inay intay isku yimaadaan intooda kale ee weli dhaqankii iyo gaabkii ay jiraan ay iyagu ay ku matali karaan ururadii kale. Faa'iidooyinka ay leedahay inay dumar wax hogaamiyaan ama ay ururo liid gareeyaan waxaa ka mid ah inay kor u qaadaan oo kale sida ay isaga sheegtay inay number badan ay waxbarashadii tagaan. Sidoo kale waxay horseeday in siyaasadihii iyo shuruucdii khuseeyay dumarka ay horgeyn karaan halkii decision makingka. Walow ay ururo badan oo ay dumarku leeyihiin ay lobbying fara badan ay sameeyeen oo ay ku dadaaleen xeerarka iyo siyaasadaha dumarka taabanaya inay horgeeyaan, haddana ay ku guuldaraysteen oo weli ay wax taagan yihiin oo dhaqankiiyo waxay jiraan oo ay ka mid yihiin xeerkii kufsiga, xeerkii citizenshipka, kootadii dumarka. Haddana waxay sahashay ururada ay dumarku ay sameeyeen still inaanay dumarku ay ka niyad jabin inay imaadaan golaha ama halka decision makingka. Waxyaabaha kale ee la taaban kara ay sameeyeen ururada isku yimid ay dumarku inay dumarkii ku soo dhiiradeen inay soo dooran karaan xilalka. Halka waxaan aad uga mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Bixi Cabdi oo dumarkii iyo dadka minority groupka lagu sheego ka dhaafay cashuurtii ama lacagtii ay laga qaadayay xisbiyada. Sababahaasoo dhan baa waxaa ka dambeeya ururo badan ay bulshadu ay sameeyaan ururadii bulshada. Marka ururada bulshada laga hadlayo runtii gaabis fara badan uu jiraa, haddana gaabkaa faraha badan leh waxaa jira ururo badan oo ay dumarku hogaamiyaan kasoo ay baxdeen. Aniga waxaa ka shaqeeya xarunta xuquuqul-insaanka madaxa bannaan, gabadh baa liid garaysa. Waad garan kartaan waa xuquuqul insaanka keliya ee maanta Somaliland ka shaqeeya ee si bilaasha dadka ku difaaca ee legal aid sameeya. Faa'iidada uu leeyahay Somalilandna dad badan oo ka baraarugsan baa jira. Marka dumarku inay wax liid gareeyaan ama ay ururo sameeyaan horumar ballaaran bay bulshadii ay ku leeyihiin. Aad mahadsan tahay. Waxaan jeclaan lahaa maadaama ay yeerno waxaan farduus maadaama adigu imika sharciyada aad baratay oo ka shaqaysid xafiiska xogaa yaqaanka, waxaan jeclaan lahaa inaad adiguna nala wadaagtid ban dhanka sharciyada iyo xeerarka u yaala dhanka dumarka iyo bulshadaba kaalinta horumar intee leeg bay ururadan haweenku ay ka qayb qaateen ama ay ka gaadheen. Gartaan tusaashay bismillahi raxmaan waxaan fahmay ururada haweenku shuruucdan waddankaas qaab cajiib uga qayb qaataan. Horta ururada bulshada marka la leeyahay waa non-profit organizations, sidoo kalena decision making maaha, iyagu go-aan ma gaaraan.
shaqadoodu ugu weyn waa advocacy inay hadlaan ay wixii jira sheegaan ay waxay qaban karaan qabtaan annaga si gaar ah haddan ururada haweenka ka hadalno advocacy-ga waxaa noo raaca empowerment baa noo raaca oo aynan annaga dhexdeena haween ahaan aqoon iyo aragti ahaan isku gudbino oon environmentkeena ka shaqeyno ururada haweenku shuruucda qaadkee bay uga qayb qaadanayaan waxay uga qayb qaataan inay fikir ku darsadaan inay qayb ka noqdaan marka la qorayo inay consultation ka bixiyaan inay tusaale ahaan imika xeerka FGM oo kale task force baa jiray ururada bulshadu ay qayb ka ahayd si gaarana ururada haweenka waxay matalayay dalada ururada haweenka Somaliland nagaad oo matalaysay marka qaybtii ka soo geli karaa waxa weeyaan inay task force qayb ka noqdaan talana ay ku yeeshaan isla markaana ay riixaan lobbying ay sameeyaan baarlamaanka geeyaan baarlamaanka markuu ay ka doodayeen ay tagaan codkooda ku darsadaan push gareeyaan inahaas ma kusoo koobi lahaa intay maaragtay roolka ay ku leeyihiin ururada haweenku marka shuruucda waddanka la dejinayo aad u mahadsantahay Fardoos guddiga amuun ubax business center waa ururkii koowaad ee noociisa ah ee Somaliland laga yeelo waa maxay fariintaad sidaan maxaase idinku dhiirigeliyay inaad soo kordhisaan maxaad hablaha u qabateen adigoo isoo koobaya maxaadse isleedihiin ood ka bedeli kartaan asaas Somaliland bismillah xaruntan jimicsiga dhiirigelinta haweenka ubax waxaan odhan karaa waa xaruntii ugu horreysay nooceeda oo kale laga abuuro dalka waana hal abuur run ahaantii ka duwan hal abuurada waddanka dhex socda waa xarun aan ugu talagalnay bal in hablihii waxaa la yidhi waxbaa la empower garaynayaa hablihii waxa laga hortegayaa inay tacadiyo ku dhacaan bal haddaba waxaanu eegnay maadaama sectors badan lagu jiro sectorka maqan aniga iyo inaan walaalanahay oo run ahaantii labadeedu aan passionate u ahayn sportka ayaa waxaa dhici jirtay yaraantii marka iskuulkana loo diro galaas baa BE baa la odhan jiray ragga waxaa loo dhigi jiray kubad waxaa la odhan jiray soo ciyaara annagana inta galaas la nagu xereeyo ayaa la odhan jiray sheekaysta marka waxayna tustay in gaab noo dhexeeya labadeedii anagii yacni dumar ahayn iyo raggii dad hablo badan oo annaga lama midin iyo waxay passion u lahaayeen ama ay jecel yihiin inay sportka qayb ka qaataan marka taasaan nagu dhalisay in aanu xaruntan samayno oo hablaha u leh maxaa la yidhahdaa talentka sportka bal inay iyaga laftigooda soo join garayn karaan oo waxaan xitaa hamigaygu yahay insha allah inaanu soo saarno hablo national level u ciyaaraya Somaliland u ciyaari doona haddii kubadda cagta noqoto haddii fooliga noqoto haddii orodyahanniin noqoto iyo dhammaan ciyaaraha ama noocyada atleetka kala duwan taa waxaa noo dheer sidoo kale in dhiirigelin aanu hablaha u samayno programyo dhiirigelin aanu qabanno oo maxaa la yidhaahdaa markaad doonaysid isbedel waa inaad qofkii soo dhiirigelisaa inaad ku dhiiratid waxan inaad samaysid waa inaad lahaataa dhiirigelintii markaa taa laftigeeda waanu dhiirigelinaa hablo barnaamijyo dhiirigelin aanu qabanaa sidoo kale waxaan meesha laga tegayn in aanu hablihii dee damcan ama dumarkii hooyooyinkii inaanu weydkii ka didno si ay u noqdaan qofku kalsoonidu waxay ka timaadaa markuu jirkiisa ku kalsoon yahay bal inay hablihii laftigooda jirkooda ku kalsoonaadaan jimicsi loo sameeyo jimiskii ay ka qayb qaataan kubaddii ay ka qayb qaataan whatever so xaruntani run ahaantii dhinaca sportka ayay saameyn weyn dalka ku yeelatay intan dambana waxaad maqlaysaa inay hablihii sport badan kusoo dhiiranayaan awal iska daa inay ciyaaraan maalmahaanu furnay waxyaabihii noogu qosolka badnaa waxaa ka mid ah waalid baana hormaraya xaruntu imanay maxaa laga furaya xaruntan waa xarun jimicsiga hablaha lagu talagalay kaale hablihii miyaad maadaama dadkeena inta badan FGM ama xidhan yihiin hablihii ayaa waxaan odhan oo hablihii baad furaysaane hablihii madhalis baad ka dhigaysaane thousands of men ayay noola iman jireen bulshadu marka in bulshadii bal at least fikirkii caynkaas ahaa laga bedelo oo hablo badan sectorka sportka soo galaan ayaanu xarunta run ahaantii xarunta iyo shaqaalaha iyo dhammaan hablaha xarunta ku xidhanba ay bulshada ka bedeleen run ahaantii saameyn badan way yeelatay saameyntii ugu weyneyd waxaa ka mid ahayd in December ama dabayaaqadii sanadkan aanu isku daynayba meesha doonaba aan kaga hadhnay in aanu samayno national level tournament football oo hablaha insha Allah saa kaga hadhmayna haddii naga joojiye sanadka dambana ama sanadkan 2020gana insha Allah waan ku dhiiranaynaa dhambaalkaana waan sii diraynaa haddii alla yidhaahdo insha Allah aniguna insha Allah waan idinku soo diiraya marka hay foosiyana way nagu sii daraysaa arrimaha ciyaaraha
caafimaad ahaan markaad eegto iyo jirdhisnimo markaad eegtaba rag iyo dumarba waynu u baahannahay ciyaaraha anigu waxaan fahmi waayey waxaan isbedelay ee maanta hablihii looga hortaagan yahay ciyaaraha toddobaataneeyadii markaanu anagu dhiganaynay secondary-ga waxaan xusuustaa waxaanu lahay tiim kubadda ciyaara oo laakiin hablo u wada ciyaarayaan inama labaanan ciyaari jirin halkaa beerta xorriyadda ayaana looga sameeyey stadium aanu ku ciyaari jirin kubaddana habluhu iyagaa wada ciyaari jiray intayada dhaadheerna basketkaanu ciyaari jirnay midba midday ka dheertahay tiim baa loo xulay basketkaa la ciyaari jiray dee maanta oo qarniyo intaasoo qarni kasoo wareegan maxaa dib inoo celiyey ee hablihii looga hortaagay waa arrinkaan fahmi waayey in yar baan ku kaabayaayo intii adduunyadu ilbaxday ee ilbaxnimadu timid ama wixii la odhan jiray industrial revolutionka adduunka ka dhacay ee hablaha loo ogolaaday inay wax bartaan inay codeeyaan waxyaabo badan loo ogolaaday ee shaqooyinkii badidoodii loo ogolaaday waxa soo baxday oo bulshooyinku fahmeen inagoo keliyaba maha adduunka in la fahmo dumarka kartidooda iyo kaalintooda la arko oo wax muuqata ay noqoto taasaa innagana inagu kaliftay waddamo badanna ku kaliftay inay dumarku arrimaha bulshada iyo ururada iyo maxaan idhaahdaa guruubada ay sameeyaanba inay sameeyaan si ay arrimaha bulshada wax uga qabtaan bulshadeenna in badan way fahamsan tahay halku-dhegyadeenna waxaa ka mid ah nin naag wanaagsan qaba weligaa ma gaari kartid nin naag kaa wanaagsan soo halhayskeena kama mida soomaalida haddaba kartidoodii iyo kaalintoodii oo la bartay u weeyaan mana lihi anigu baahiyihii oo dhan baan wada daboolay laakiin kaalin muuqata oo cad oo la taaban karo ayay dumarku kaga jiraan bulshadeenna maanta masantay fosiya waxaad igu dhigtaa Somaliland Women Journalist Association warday waad ka warhaysaa warbaahinta bulshada horumarka ay soo gaarsiin karto weliba waayadan imika maxaa ugu weynaayay kugu dhaliyay inaad asaastid ururkan maxaase wax qabado oo aad intaa qabateen muddada waa asaasnaa ururka aad u maasatay ururka Female in Media Organization FIMO horta waxaa la asaasay 2018 waa urur hadda dhowr sano oo jiray warbaahintu saad sheegtay waxay kaalin muhiima ay ku leedahay horumarka guud ahaan bulshada caalamka iyo dalalkaba Somaliland marka mediaheeda marka laga hadlayo waxaa jira dhowr dhibaato ama dhowr caqabadood oo jira mid waxay u gaartay haweenka saxaafadda ka shaqeeya midna waxay u gaartahay mediahu waxyaabaha uu focus gareeyo oo mediaha Somaliland inta badan waxa uu ka hadlaa wax weeyaan siyaasad arrimaha bulshada inta badan xoog lama saaro ta kale jirta iyaduna waxa weeyaan haweenka Somaliland amba mediaha oo aan inta badan soo gaadhin meelaha maamulka sidoo kalena aan qabin barnaamijyada muhiimka ah arrinta kale jirta iyaduna waxay tahay mediahu isagoo xataa marka laga hadlayo waxyaabaha u baday siyaasaddu ka mid tahay aad bay haweenku ugu yar yihiin waxaa laga yaabaa dhammaan telefishinada Somaliland ka hadla haddaad habeenkii shido oo wararkooga aad istiraahdo daawo inay laga yaabo telefishin kasta war 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo inuu soo daayo waxaa dhici karta habeenada qaarkood in dhammaan telefishinada aan xataa hal mar aan sawir dumar ka arkay warka soo jeedinaya waa nin ka soo report gareynaya waa nin cidda hadlaysa waa nin cidda shirkad qabata waa nin cidda wax kale ka hadlaysa waa nin mashaariicda kala duwan la qabtay cidda ka hadlay waa rag waxaa laga yaabaa dhammaan telefishinada haddaad u fiirsato hal habeen fadhiisato inaanan hal mar xataa sawir gabadh ku arkahay haddaad aragtidna waxaa laga yaabaa iyagoo ama meesha soo camiraan ama sacab ku tumay inaad aragtid laakiin aanay kaalin ku lahayn waxa socda marka anagu waxaan isweydiinay si dhibaatooyinka hablaha saxaafadda u gaarka isku bedesho arrimaha bulshada looga hadlo oo waxyaabaha hadda midyuhu uu diiradda saaro looga leexdo haweenkuna ay u helaan inay codkooga bulshada gaarsiiyaan maxaynu samayn karnaa markaa fiima ahaan waxaanu garanay in waxa ugu mudan aynu samayn karnaa ay tahay in haweenku maamulka saxaafadda ay qayb ka noqdaan taas sidaan u samayno markaa waxaan xoogga saarnay in aanu qabanno oon horta dumarkii haddaanu idhaahno maamulkaan keenaynaa waxaa laga yaabaa inaanay waxba bedelin haddii inantii aanay u tababarnayn inay wax hogaamiso oo hogaamintii qayb ka noqdo waxaa laga yaabaa haddii xataa wax soo kordhisay inaanay wax badan soo kordhin karin
marka anagu waxaan xoogga saarnay aniga iyo inan kale oo Hussein Maxamed Cabdi la yiraahdo ururka wada aasaasnay ayaa waxaan fursado badan u helnay tababaro la xiriira dhinaca hoggaanka oo marka laga hadlayo hoggaanka miidiyaha oo aanay dumarku qayb ka ahayn waa wax ay saxaafadda Afrika inteeda badan nala wadaagto marka waxaa jirtay in ururada saxaafadda caalamiga ahi ay sameeyeen tababar lagu tababarayo hablaha in ay maamulka qayb ka noqdaan marka muddo ilaa 6 jeer aan waddanka dibadiisa naloo kaxaysaan tababarada qayb uga noqono mararka qaarkoodna aan maamulka nala barayay mararka qaarkoodna inaan anagu wax sii tababarno nala barayay marka waxaan nidhi hablaha maamulka horta aynu ka dhisno oo aynu aqoon maamul horta barno waxaanu qabanay tababaro kala duwan oo ilaa 2018 dhamaadkiisii ilaa hadda 2021 kii ugu dambeeyay toddobaadkan gudihiisa sabtidii axadii baanu qabanay oo isaguna maamulku la xiriiray dhammaan tababaradan qabanayna dhammaantood maamulka la xiriiraan iyo sidoo oo kale in haweenka cod la siiyo maadaama hablaha saxaafadda hadda ay inta badan wariyaal iyo barnaamijyada ay ku badan yihiin oo kaalintooda halkaa tahay in haweenka cod la siiyo tababaradeedu la xiriireen alxamdulillah waxaa noo suurta gashay intuu ururkaasi jiray haddaan ku daro marka maamulka laga tago haween dee saxaafad lahoo milkiliyaalna maba jirin marka alxamdulillah waxaa intii noo qabsoomay in aan haweenkii ay soo gaadhaan in telefishinadii iyagoon weligood ka noqon madaxa barnaamijyada ka noqdaan in haweenka ay noqdaan wasaaradda warfaafinta inay soo gaadhaan agaasimo waaxeed sidoo kale in inantii ugu horreysay 2 hablood baa jira oo hadda iyagu sameeyey miidiyaha xarumo warbaahineed mid waa inan Nicimo la yiraahdo waxay sameysay carre edeg media oo website iyo Facebook page iyo Instagram iyo meelahaas oo ka shaqeeya inanna waxay sameysay Xawo magazine sidoo kale waxa hore u jirtay inan Salma la yiraahdo oo Somaliland Review magazine la yiraahdo soo saarta marka alxamdulillah dadka fiimo tababareed ka qayb galay maanta iyagu wax aasaasay ilaa anagu waxaan doonaa maanta waxaan leenahay Nicimo kamid ah carre edeg media sameysay hablaha qaar kamid ah maanta agaasimo waaxeed iyo madax qaybaad labadaba wasaaradda warfaafinta oo madaxdan uga mahadnaqana soo gaaray inan sagal galdeeq la yiraahdo kale oo iyaduna hablaha ururka kamid ah ku jirta madaxa barnaamijyada telefishinka home cable ka noqotay marka shaqooyin badan ayaa jira sidoo oo kale waxay habluhu qayb ka yihiin hadda oo ku tababarnay in warbaahinta casriga maadaama hadda loo guuriyo loo badan yahay in ay xirfadooda uga faa'iideystaan in ay iyagu page samaystaan marka alxamdulillah maanta hablaha waxa kamid ah qaar iyagu samaysay page Facebook oo gaara oo lala soo hadlo oo siyaasiyiintii dadka ka oranayaan dad baa kugu xidhan kaale waxaa noo geli shirkadiintii soo casuumaan ay oranayaan noo xayisi marka waxyaabahaas ilaa imika aad muhiim ah sidoo kale waxa jirta sagal oo kale hadaan xusay waxay sameysay hadda isaguna Facebook page kale oo ay kaga hadasho loo bixiyo doorashada waxa la rabaa in lagu xoojiyo in haweenka hadda siyaasadda raba inay baarlamaanka golaha deegaanka soo galaan iyo sidoo kale dadka la haybsooco marka waxyaabahaas ilaa hadda aan oran karnaa wacyigelintii iyo isku tashigii ay habluhu sameeyeen oo dee laga wada qayb qaadanayo oon odhanahayn ururku isagaa dee halkaa keenay laakiin ugu yaraan markaan hablihii wacyigelinay aynu yidhi halkan inaynu dee taagnaano uma qalano hablaha qaar ba waxay hablaha qaarkood aaminsan yihiin oo laga dhaadhiciyey in iyagu ay yihiin quruxdii saxaafadda oo intay qarash iyagu ay leeyihiin lacag ka bixiyaan oo makeupka iyagu lacagtooda ku marsadaan dharka iibsadaan iyagoon mushaar ku filan qaadanahay ama aan mushaharba qaadanahayn in TV-ga lagu qurxisto marka inay ugu yaraan hablihii maanta diyaar u yihiin inay dadkooda wax kusoo kordhiyaan qurux hayna laakiin ay yihiin dad door muhiim leh ayaan hadda ka shaqeynayna waana sii wada doonaa insha Allah sidoo kale waxyaabaha ugu horeeya hadda ka shaqeynayna waxa kamid ah in ay si toos ah iskula kulmaan haweenka hadda musharaxiinta maadaama dhaqaale ay media ugu yeedhaan ay lacag ku bixiyaan aanay haysan in haweenku xoojiyaan aad u mahadsantahay warda naga raali hada waqtigoo dheeraaday dartii habla aad wanaagsan oo aad mutacalimiin u ah oo waxyaabo kala duwan oo aad wanaagsan waddanka u qabanaya ayaa halkan caawana la fadhiyo oo aynan ka xiisa dhacayn waxyaabaha bulshada u tareen iyo waxyaabaha ay qabtaan bahja xoog wadaag adiga oo noo soo koobaya maxay qabataa maxaase kugu dhiirigeliyey ama aad bulshada kusoo kordhisaan bismillahi raxmaan raxiim su'aal wanaagsan xog wadaag waxa weeyaan waa madal ama platform ama forum hadda sidaad u fahmaysaan waxa weeyaan waxa la aasaasay 2014 waqtigaas waxay ahaayeen rag iyo dumar isku jira kabacdi istaag baa galay ama gaab baa galay maadaama ay markaasi ay baahiyaha la wada qabay rag iyo dumar ahaan aanay isku mid ahayn 2018 baa xog wadaag dib dhaska looga tumay waxaana la go'aamiyey inay noqoto madal haween kaliyaata matasha
xog wadaag waxaa ku midoobay hablo dhalinyaro ah oo background aqoomo kala duwan leh, hadday noqoto sharci, hadday noqoto management, hadday noqoto politicalba. waxyaabo badan bay xog wadaag markaa ay wadaagaan sida magacaba ka muuqata. waxaa la wadaagaa afkaar iyada oo fikir lagu burburinayo fikir kale, amaba waxaa dhici karta dadka qaar maanta markay rabaan inay arrin ka hadlaan oo kale in iyagoon lasoo wadaagin ama aan lasoo sheergaraynin dhexdooda ay ama tv lasoo istaago ama lasoo istaago madallo kale si markaasi ra'yigii qofkaas personaaliga ahaa uu halkaa uga dhigto. laakiin xog wadaag sida magacaba u taagan tahay, halkaasaanu xogta ku wadaagnaa, ku sheergaraynaa fikirka halkaa jiraanu fikirro kale aanu ku kordhinaa ama kaga soo horjeesanaa. waxaa la wadaagaa bugaag baa la wadaagaa, waxaa la wadaagaa cilmi baadhisyo, sidoo kale waxaa la wadaagaa seminaaro, waxaa la wadaagaa workshopyo. waxaa jira sanad leh oo sanadka dabayaaqadiisa xog wadaag dhalinyaro fara badan oo dumar ah iyo haween kala duwanba lagu soo casuumo, iyaga laftirkooda afkaarta laga qaato. waxaan sidoo kale ku soo casuunaa session baanu leenahay bisha maalinta u dambeysa, bil walba maalinta u dambeysa. sessionkaas waxaan ku soo casuunaa ama qof baa bug soo diyaariya, ama qof baa keena xeer, ama qof baa keena seminar oo kale, ama idea oo kale, ama qof baan kusoo casuunaa oo banaanka ah oo markaasi aanu ama aragti aanu u qabno ama rabno wax naga dahsoon oo kale inaanu la wadaagno, oo maadaamaanu intayadii aanaan dee bulshadii si fiican loogu wada dhex jirin, waxaa jiri karta eriyooyin kala duwan oo qof kale nooga dhuun dalooloo kale aanu la discuss karayno. kabacdi waxyaabahaas oo kale waxaanu hadhow toolo soo dhignaa platformka ee social mediaha xog wadaag ay ku leedahay. waad soo eegeysaa soo gaabiya Isoo gaabiya. aad baad mahadsantahay, intaysan kusoo koobaya. aad baad mahadsantahay Baaja. Orange Movement. Xamda oo ay ka mid tahay xubin ka mid ah Orange Movement. Orange Movement wax nooga sheeg adigoo soo koobaya. waxaa kaloo noo sheegtaa maadaama ay ka shaqeeyaan tacadiyada oo imika aad u sii badanaya, waxyaabaha muuqan kara ee aad qabateen. Orange Movement horta ma aha urur organization oo registered oo Somaliland registered ka. waa movement ay dhalinyaro badan oo bulshada qaybaheeda kala duwan kaga jira ay ku midoobeen. sanadkii 2020 dhammaadkiisii markii tacadiyo fara badan oo nolosha dumarka iyo bini'aadamtinimadaba taabanaysa ay iskaga soo daba dhacayeen, ayaabaa waxaan dhalinyaro badan aanu kaga fikirnay talo maxaa bal lagu dabar jari karaa, at least bal inagu ka dhalinyaro ahaan maxaynu ka qayb qaadan karnaa. badiyaa waxaa jira hay'ado badan oo ka shaqeeya arrimaha dumarka, ka shaqeeya maxaan ku dhahdayay sidii loo dabar jari lahaa SGBV-ga ama tacadiyada ka dhanka arrimaha dumarka. waxaan odhan karnaa hay'adaha ama international ha ahaadaan, at same time civil society-ga ha ka mid ahaadaane hay'adaha waddankeena ka shaqeeya absolutely ma taabtaan nolosha dadka halka degan. waayo marka mashruuc ama la fulinayo ama wax laga qabanayo ka hor waxaa loo sii diri jiray berigii hore sahan intaan ceelka la soo qodin waxaa la soo sahamin jiray bal inay halkan biyo fadhiyaan iyo inay waxani ay wax hadhow toolo sustainable oo sii waaraya ay ka noqon karto. sidaas si lamida wadamada Afrika kala qabnaa inaan laynoo samaynin wax la yidhaha assessment oo intaan baahideena la ogaanin kadibna aan waxa absolutely aynu u baahannahay wax laynagala qabanin. marka anaga oo ka duulayna inaan hay'adaha waddanka ka shaqeeya internationalka iyo localkaba u badan aanay taabanin baahida reer Somaliland ayaa waxaan sameynay movementkaasoo ugu talagalnay cid kasta oo ay taabanayso tacadiyada ka dhanka arrimaha xuquuqul insaanka iyo bini'aadantinimada ee dumarka loo geysanayay inay ka qayb qaataan. movementkan waxaan sameynay waxaan ka fikirnay December horaanteedii oon aasaasnay marka anaga oo waxqabadkii ugu horreeyay ka bilownay 16 days activism-kii oo ka bilaabmayay 25 November ilaa 10 December oo aan ka fulinay gobollada Somaliland oo dhan. maalintii 10 December oo ku beegnayd maalinta xuquuqul insaanka adduunyada loo aasteeyay ayaa waxaan kusoo gabagabeynay magaalada Boorama. waxaanu ka qabanay iyo waxyaabaha badan ee ka qabanay gobolka Saaxil baa ka mid ahaa
berbera hargeysa oo qaybaheeda kala duwan aanu isla marnay waxyaabaha ugu badaneen oon sameynaynay waxay ahayd wacyigelin marka la sameynayo like dadka intooda badan waxay adeegsadaan miidiyaha campaign-aan ka sameynay inaan dadka challenge garayno markaa waxaan idhi miidiyaha dadka jooga absolutely waa dad baraarugsan waa dad og in xataa tacadigu haddii uu ku dhaco ayba dhacdo in loo tacadi ku dhaco halka ay tegi karaan og barta ay u doonanayaan kaalmada sharci og waxyaabaha looga baahan yahay investigationskiisa xoojinaya markaa waxaan tagnay anigoo oo ka duulanay dhacdadii aadka u foosha xumayd ee xarunta dhalinta agoomaha ka dhacday ayaa waxaanu marinay iskuullada somaliland oo dhan iskuulladaasoo waxaan barinay hablaha iyo inamadaba inay jiraan tacadiyadu siyaabo kala duwan oo loogu sheegi karo tacadi sidaabaha iskaga ilaalin karaan marka haddiiba ay dhacdo oo dhibaatadaasi ay ku timaado cidda ugu horreysay markaa la xidhiidhi karaan hadday noqoto goob caafimaad inay tagaan hadday noqoto maxaan ku dhahdayey inay tagaan goob booliis oo kiiskooga la report garayo sidoo kale waxaan ka wacyigelinaynay dhalinyarta iskuulka dhigatay inaan like dhibaato waarta inay leedahay inay ciqaab adag ay jirto inay noloshiisa iyo mustaqbalkiisa inay intay dhalinyaro iska haystaan oo ay samaystaan guruubyo in maxaan ku dhahdayey inay dhibaato dumarka ay u geystaan hadhow tole waxaa kaga iman kara inay noloshooda dambe mustaqbalkooga ay burburin karto sidoo kale waxaanu baraynay education aan u sameynaynay welibana hablaha awoodda saaraynay inaan barno tacadiyada qaybihiisa kala duwan inaan barno maxaan ku dhahdayey inayna hadasho wixii ku dhacay ay sheegto mararka qaar waxaan u sheegaynay inay aamusnaantu ay ka mid tahay tacadiga oo qofku inay dhibaato ku dhacday inuu aamusa inuu accept gareeyey waxyaabaha kale aan sameynaynay waxaa ka mid ahayd iyaduna social media campaign oo somaliland oo dhan dadka ay arrimahani ay taabanayeen ay nagala qayb qaateen movementkan waxaa nagala shaqaynayey ururo fara badan baa nagala shaqaynayay oo ay ka mid yihiin voice for youth waxaa nagala shaqaynaysay xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee HRC Human Rights Center sidoo kale waxaa gacan muhiima naga siisay oo iyaduna sida kadaalik kambaniga aadka weyn ee Sagalchat oo ka qayb qaadatay inay iyaguna beri ka yihiin tacadiyada goobaha shaqada ka dhaca waxaa jirta tacadiyo kale oo fara badan oo ka dhaca meelaha aynay dadkeenu aanay gaadhin ay ka mid yihiin magaalada koornayaasheeda miyada welibana aynay dadku ku baraarugsaneyn waxyaabaha lagu sameynayay inay tacadi yihiin iyaga kuwaa laftigeeda waxaanu kasoo siinay awareness oo wacyigelinaan ka bilownay waxaanu tagnay IDB-yada iyo halka ay dadka jilicda sali joogaan mararka qaar kiisaskii aanu la kulmaynay waxaan sameynay inaan qaarkood aan ka siino kaalmo sharci kiisaskii aanu soo gudbinay qaarkood waxaan ku xidhnay looyaro ilaa iminkana waxaanu dhignay goobihii aanu u arkaynay in tacadiyo fara badan ay kasoo noqonayaan ama dhibaatooyin fara badan oo soo noqnoqonaya ay ka jiraan inaan contactskayga iyo nambaradayadii aan u dhignay si aan uga caawino haddii ay wax imaadaan waa mahadsantahay kusoo dhaweynaya fosiye iminkana fosiye waxaad nala wadaagtaa adigoo aad iyo aad u hubiya waxqabad intee leeg bay somaliland and midwifery association soo kordhisay waxaad se adigoo sii wadanaya igu soo ku dartaa talo intee leeg ayaad maxaad hablaha somaliland ee raba inay urur aasaasaan ama ay rabaan inay madax ka noqdaan ama kaba shaqeeyaan aad ku dhiirigelinaysa aad kula talin lahayd intaanan u gelin somaliland nursing and midwifery association maxay qabatay ama maxay soo kordhisay waxaan jecelahay maadaama aynu caawa ka hadlayno kaalinta ay dumarku ku leeyihiin bulshadeenna ama ururada bulshadu kaalintay ku leeyihiin ee dumarku hoggaamiyaan waxaan jecelahay dhammaanteenba inaynu xusno una sacabinno una ducayno tobankii dumar ahaa ee 91kii markii dalka la soo galay berber ordayey raggeenii soo noqday ee kaalinta weyn ka qaatay hadday noqoto nabadaynta hadday noqoto diminta khilaafyadii kale ee ka abuurmay hadday noqoto shirkii burco cuntada karinayey ragga berber taagnaa raashinka halkaa usoo dhigayay sharaabka soo dhigayay wax walba soo dhigayay toban dumaray ahaayeenoo urur sameeyey
oo isla markiiba hawshii halka ka bilaabay oo ka qayb qaatay hubdegistii oo ka qayb qaatay dhisidii magaranaysa xitaa dibudejintii raggeenii soo dagaalamay snm rehabilitationkii loo sameynayey u sameeyey ka qayb qaatay waxaa ka mid ahaa nuuriin michael maryamo waxaa ka mid ahayd ilaahu naxariisto shukri xariiroo beri dhawey dhimatay waxaa ka mid ahayd aamine simadheer way badan yihiin ma wada tirinayo laakiin waxaan odhan lahaa aan xusuusanno qaybta weyn kaalinta muuqata ee ka qaateen anigu waxaan ogahay marka laga soo dareero shirka burco ee la isugu yimaado meelaha dadkeenna waa taqaanaane qof wali wuxuu leeyahay qabiilkayagii maxaa la siiyey qabiilkayagii maxaa loo qoray iyo maxaa loogu daray axad qarameedka khilaafaadka qayb weyn bay dumarka ka qaateen dejintaa inay reer walba iyo gobol walba gaar ula hadlaan oo u tagaan oy nabadayntii ka qayb qaataan iyo dejintii dalkeena kuwaa horta aan u ducayno waa kaalin weyn bay ka soo qaateen dumarku ilaa bilowgii ilaa maalintaa maantaynu joogno ururkayagu ururkan aanan u hogaamiyo keligay ma hogaamiye ee horta boardna wuu jiraay wax badan baan isleeyahay waa qabateen wax badanina waynoo dhiman yihiin oo waan wada taaban sidaan idiin sheegay markaanu aragnay dhibaatooyinka haweenka haysta dhimashadii iyo inay in yar tirsadaan inay dhintaanba ay jirto annaga iyo wasaaraddu waxaanu iska kaashanay in degmooyinka inta dumarka laga soo sidee magaalada la keenayo oo dariiq xumadii u dheer tahay ay dhexda ku soo dhimanayaan ama dhigbaxayaan in hablo laga soo qaado degmooyinka la tababaro dadna degmooyinkii iyo tuulooyinkii lagu celiyo si ay dumarkii u badbaadiyaan inan walba waxaanu ku xukunnaa 2 sannadood inay u soo shaqayso bulshada deegaankaa degan tuulada ama magaalada districtga 2 sano markay u soo shaqayso ee kontraatka ay dhamayso kuwii kale soo baxay baa qaad bedeli karaa labadii sanaba qaad baa soo baxa imikana sanad baabanu ku darnayo waxaanu aragnay wax badan inay ka dhiman yihiin oonay dadkii tuulooyinka joogay maadaama aan tuulooyinkii dhakhtiray jirin inaanay aqoonteedii wada lahayn inay wax badan qabtaan marka imika haddana sanad baabanu ugu kordhino manhajkii waanu bedelay marka taasi qayb bay ka tahay waxa kaloo markii tiradii noo soo yaro korodhay neefka iyo midwife-ba loo baahday in tayadii wax laga qabto tayadii sidaan wax uga qabanayni quantity iyo numberkii hadduu batay tayadii baa dhiban tayadiina waxaanu uga qabanaynay inaanu tababaro joogtaa u samayno iyo inaanu tacliin sare u raadino waxaanu u bilownay markaa intii dibloomada ahayd in aanu siino waxa la yidhaha tobar degree oo imika 3 sano waxay soo dhameeyeen diblomaha inaanu ugu darno 2 sannadood oo ay bachelorkii qaataan markii bachelorkii in badan inoo qaadatay haddana waxaanu aragnay inay naga dhiman tahay qaybtii waxbarashada waxaan u jeedaa macallimiintii nursingkii midwife wax u dhigi lahaa u dhowdu dalka way ka baxeen kuwii aqoonta lahaa ama way haajireen ama way dhinteen inaan markaa leadershipkii dadkii leaderska ka noqonaya nursing and midwifery educationka daadihinaya waxbarashadii waayo qofka dibloomada dhigaya waa inuu bachelor haysta ka bachelor dhigaya waa inuu master haysta ka master dhigaya waa inuu PhD haysta qofka aad tababarayso waa inuu wax dheertaa marka waxaanu la galay heshiis jaamacad ku taalla Dalana Sweden ayaanu heshiis la galay inay online kuwii bachelorka haystay master noogu tababaraan marka imika 2 batch 2 class ayay noo dhameeyey masterkii oo sii wadi kara iyagu bachelorkii imikana waxaanu wadnaa oonu heshiis la galay in jaamacadda burco jaamacadda laascaanood jaamacadda hargeysa iyo saboorame mid walba 2 macallin oo nurse iyo midwife in PhD na loogu tababaro si programkii masterka aynaan jaamacado dibadda ugu baahanay inagu waddankeena jaamacadaheenu ay noo dhigaan masterka kolba uma baahina jaamacad kale u tagno marka hadda laba arrintii bachelorka 2 macallin oo kuwii jaamacadda hargeysa sanad iyo badh baa uga hadhay PhD labadaa markay dhameeyaan kolba 2 jaamacad loo tababaray intaasina waa guulo ilaahay inoo sahlay inaynu gaadhno
tiradana markii hore waan idiin sheegay way soo korodhay laakiin waan wadaynaa waan kordhinaynaa si ay waddanka wada gaadhaan passportka ay ka hadlaysay ayaan iyo ku wada hadlayeen habluhu ee lagu sameynayay bolisiyada iyo shuruucda waddanka mid walba waanu ka qayb qaadanaa oo task forcekii nafis network waan ku jiray task forcekii masaaf samaysay iminka aynu ku samaynay shuruucda qayb baan ka ahayn ururka iyagoo anaaba ku jiray 8 qof ee loo saaray waan ku jiray kuwaana waanu ka qayb qaadanaa waxaa kaloonu ka qayb qaadanaa waxa la waxaan dee bulshadeena saameynaya kale waayo dhibaatadii markaad aragto meel dhibaata ka jirto ma odhanaysa anigu caafimaad baan ahoo dee ma gelayo qaybtii dhaqaalaha iyo waxbarashada meeshii baahi ka jirtayba inaad qaybtaada ka qaadato oo dalkaaga waxaad u qaban karta iyo dadkaaga waxaanu dalkaba ugu soo noqonay in wax laga qabto marka waxaa jirta member baan ka ahaan guddigii civil society-ga ee la shaqaynaysay guddigii covid-19 ee madaxweynuhu magacaabay qayb baan ka member baan ka ahaa waan la shaqaynaynay waxaan ku jirnay kuwii wacyigelinta ka waday suuqyada gobonimo waaheen meelaha kale ee dadka ka wacyigelinayay IDB-yada haamihii wanagii uga soo qaadaynay ay ku farxalanayeen saabuuntii markuu covid-ku bilaabmay marka waxyaabo badan baanu qabanaa laakiin focuska iyagu waxa weeye ama community-ga iyagu annaga ama dadkaan u adeegnaa waa neef iyo midwife marka waxbarashadooda udoodidooda hadday mushaharkooda noqoto hadday shaqaalahooda noqoto hadday environmentka ka shaqaynayaan iyo meelaha ka shaqaynayaan noqoto haddaanu shaqo raadintooda noqono qabanno waxyaabo badan baanu qabanaa aad baad mahadsanta koosiya iigu soo gabagabee waxaad ku dhiirigelin lahayd intaanan dhiirigelintaa gaadhin dhalinyaro ayaa halkan caawa fadhida oo habliye inamaba leh hablaha ama inamada dhalinyarada ah habeenkii jaamacadaha dhigtaa war fiican baan idiin sheegaya waan ogahay inamadana in moobile lagu dilo hablahana laba kufsado haddii la doono ama la xadoo la dhaco xafiiska iyagu wuxuu keenay allaamkaasi waxa weeye soomaalida maqal policeerku inuu wii yidhaahdo bahal yar baa saa uga furaysaa uu qaylinaya waa lagu soo gurmanaya marka allaamkaasaanu xafiiska ku haynaa annaga waa la soo iibiyey waana lacag yaryar baa laydinkaga iibinayaa waanu idin badbaadinaya ilaahay ka soko ilaah baa wax badbaadiyey marka taana waan idiin sheegaya waxaan idinku dhiirigelinayaa dhalinyarada haddaad tihiin oon caawa idinka codsanaya inaynu dadaallo dadku adduunka iyo dalalku waxay isku dhaafeen oy ku kala hormareen waa sida bulshadeedu u dareento lahaanshaha waddankooda waa inaynu mar walba inagu jiraan waxaa loo yaqaana afka qalaad sense of ownership waxaan anigaa ah haddaynu wax walba dawlad ku hadlay haddaynu wax walba nidhaahno dawladdii baa qaban weyday ma soconto waxna inoo hagaagi maaya xoog iyo xoolaba waxaynu inagu iska goyno ayuunba wax inoo taraya kii aan lacag haynin xooggiisu kaga qayb geli karaa waynu u volunteer garan karnaa dalkeena aynu hoos u eegno dadkeena jilicdasan caruuraheenna dumarkeenna hablaheenna dhibaataysan hawl badan baa inamo ka qaadan qayb weyn baa ka qaadan arrimaha ka hadlayno ee guriga ka dhacaya qayb weyn baa inamo ka qaadan kartaa habluhu way ilaalin jireen waxaan jeedaa inamadu hablahooda way ilaalin jireen dhaqankeennii horaa waxaan u malaynayaa ilbaxnimadan iyo waxaan inoo soo galay iyo filimadan xunxun iyo waxaan laynoo keenayaa dhaqankeennii wanaagsanaa bedelay aynu dhaqankeennii wanaagsanaa usoo noqono aynu diinteennii suubanayn usoo noqono sidaynu bulshada iyo inteena jilicdasan ugu adeegi jirnay inu caawin jirnay wax ugu qaban jirnay ha lagu soo noqdo oo aynu isu naxariisanno markaynu isu naxariisanaa roobku daayaa bay culimadeenu tiraahdaa soo maa aynu isu naxariisanno markaasaa wanaagu dhalanaya aad baad mahadsan tahay waa runtii gabagabadii waxaan imikana jeclaan lahaa inaan kusoo dhaway farduus adigoo midhiga laba kusoo koobaya maxaad adiga qudhaada ku dhiirigelin lahayd ka dhalinyaro ahaan hablaha dhalinyarada ee soomaaliyeed
iyo hablaha Soomaaliyeed dhammaantood aad ku dhiirigelin lahayd inay بسم الله الرحمن الرحيم أدبر ما تنتي لما أنت إنه سيد نقص بتينا عويس كوب الشيء نوع الجمع العلينية سكارة وحنا بلا هالك فدي الستوري كده عاوة مش يكوي كده عاوة مقليني وأنا دين هم يا هم هالك عن ذلك كولا إذا كده يقولون تينو حويا هالك عن ذلك كولا وذلك الثاني ذلك سنسي له جبارة قبلها كل رئيس الملك كان أرى لها قف بلادك وحب بدله وأقونت هالك ترتوح تفوق هذا الساعة وأنا أقوى لكم هدالنا أقوى هكدالنا هكني يرشمنا أيسورنا دقري مستر بار كمسة دقري بس كمسة ما حد شقمية هيل دونتا أيسورنا كويكا هريو وحنا ما يبرنا حكيت كويكا دونتا أيسورنا نبري مركز كورسات كوري لبوكين دوناية ما حد كبران دونتا وحنا كأورال هانو هدا دربت نول شهر يوم مستقبل كاغ إن دكتبت الشو وحبرا أنت سبسوكو يا أدنى المسنتين santihiin dhammaantiin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan marti sharaftaan kan caawa nagala soo qayb gashay oo igu horeeyaan aad shaqada qabanaysaan aad iyo aad bay wanaagsan tahay waxaan idinku hambaleynayaa dhammaan horumarka kala duwan ee caawa halkan ay kusoo koobi kari weynay ee aad kusoo kordhinaysaan bulshada waxaan u dhibayaa aad u mahadsantiin hablo shaqo wanaagsan bay hayaan waxaan doonayaa inaan shaqada halkaa kasii wadno dumar ahaan baahiyo badan baa waddanka ka jira oo rag iyo dumarba ay qabaan dumar oo keliya baahi ma qabaan laakiin waddanka si guud baahiyo badan baa ka jira inoo baahan wax ka qabano waxaan doonaynaa in baahiyahaasi marka koowaad aynu qabashadoodu ahaato wax damqasho iyo laxa jeclo dalkeena iyo dadkeena inaga haysa ay naga keentay marka koowaad mar labaadkana waxaan doonaynaa inagoo shaqada dadaalayna haddana in aynu rag iyo dumar isu kaashano ragga Soomaaliyeed dumarka cadowga maaha marka run laga hadlayo laakiin waxaan dumarka dhibaataynaya waxa weeyaan dhaqan iyo system iyo wax soo socday shakhsiyan marka aad maanta u fiirsatid ragga hablaha way caawiyaan goobaha shaqada way ku caawinayaan waxa ugu yar ku qaban wax way kursiga ku fadhiya way kaaga kaceen dad iyagoo kursi kale meesha oo aad soo istaagtid basaska way ku istaagayaan dad aragtid inay haddii maanta wax la rabo in la qabto hablaha hormariyaa la odhanayaa haddii saf la gelayo habluhu ay naga horreeyaan baa la odhanaya sidaas oo kale marka raggu cadow naguma aha laakiin waxaan doonaynaa in systemka qaldan iyo dhaqanka qaldan ee raggu inay mararka qaarkood walaashii iyo faamiligiisa wixii ka soo hadhay uu arko hilib meel yaalla loo arko siyaasadda inaan dumar loogu talagelin loo arko hogaaminta inaan dumar loogu talagelin waxaasoo dhaqan iyo system ka imanayn doonaynaa rag iyo dumar cadow isku manihiin inagoo wada jira inaan horumarka ka wada shaqayno sidoo kale waxaan doonaynaa inaan dumar hadday nahay isku dhiirigelino in markaynu wax qabsanayno keliya aynaan sugin inaynu dhaqaale cid kale ka helno laakiin aynu mararka qaarkood nidhaahno maanta yaynu weydiisanaa meel aynu isugu nimaadno biyaha aynu isku dardarno aynu soo iibsano sidaas kale aan wax u qabsano dabeetana aynu wixii xog bulshada aynu la wadaagino mararka qaarkood aynu baabuurteena kaxaysano aynu inagu shidaalkeena isticmaalno aynu bulshada gaadhno aynu soo wacyigelino intaasoo kale aan samayno sidoo kale waxaynu ka codsanaynaa dadka maamulka uu gacanta ugu jiro hadday tahay dhinaca tahay cadaaladda hadday tahay dhinaca baarlamaanka hadday tahay dhinaca dowladda xukuumadda waxaan doonaynaa in ay shaqada haweenku hayaan ee ururada weliba haweenka ku jira ee raba inay wax bedelaan in lagu ixtiraamo baarlamaanku in xeerka la horgeeyo aanay ka fikirin cid baa dabada ka wada laakiinse ay u fikiraan nin kasta uu fikiro dadka maadaama aan dumar ku jirin fasalaan baarlamaanka kuwa imanaya insha Allah way ku jiri doonaan laakiinse xataa hadday rag u bataan markaas inay ka fikiraan dhibaatadani waa soo inantaada ku dhacaysa hooyada ku soo dhacday walaasha ku dhacaysa xaaska ku dhacaysa bulshadaada oo dhan ku dhacaysa waxana dib jira ma yahay hay isweydiiyaan laakiinse markaaba ay ka soo fikirin waxaan reer galbeed baa wata iyo cid baa ka dambaysa inay iyaguna joojiyaan in dumarka sidoo kale ay xukuumadda awoodda qayb ka siiso oo dee hoggaanka sare lagu soo daro in goobaha cadaaladdu markay dumarku ay sharci iyo cadaalad ka doontaan ay ixtiraamaan oo sidaa imika maama inoo sheegaysay aan la odhan ilmo yar baa lagu sheegay madaxweyne jirka ma gabadha la sheegay laakiinse qofkan muxuu ka cabanayaa inay ka fikiraan sidoo kale haweenka looyarada u doodayay iyo ururada u dooday u qareemayana in lagu ixtiraamo in dadkaasi ay cadaalad helaan inta waxaan ku darayaa waxaa jira dalka shirkado waaweyn dad ganacsataa oo dhaqaale haysta waxaynu u baahan nahay arrimaha bulshada markaynu wax ka qabanayno
cidda ugu badan ee maanta ina saacadeyn kasta dawladdu ay mararka qaarkood wax bixiso iyadoo ay wax bixiso laakiin waa hay'ado caalamiya waxaan u baahannahay ganacsatadeenna iyo shirkadaha dadka kala duwan ee dhaqaalaha haya in ay dhibaatada iyo baahiyaha bulshada dareemaan inay ururada maalgeliyaan inay dhaqaalo siiyaan imika hay-adaha caalamiga inta badan markay dhaqaalo ku siinayaan waxa ay ku saleynayaan iyagu mashaariicda iyo markaa waxa u dejisan aadna uma dareemayaan baahideena laakiinse in shirkadaha localka ee reer Somaliland ay dareemaan baahida bulshada oo markaa inta loo tago ururaduna ay isxilqaamaan oo hay'ado wax ka sugina ay wax ka doontaan in iyaguna ay ku ixtiraamaan oo isbedelka bulshada ay dadka ganacsatada iyo shirkadaha kala duwan inay qayb ka noqdaan baan iyagana aan codsi halkan uga diray waad mahadsantihiin waxaan kusoo koobayaa uun laba ma kusoo gabagabeynayaa waxa ay warda sagal sheegtay in kaloo ka badan oo inagu aynu tabanayno dhammaanteen waxaynu u baahannahay liidar wanaagsan haddii liidar wanaagsan la helo waxa ay soo koobaysaa inuu ka jawaabo baahiyaha bulshada yaallo oo dhan liidarka wanaagsani wuxuu inoo sahli karaa inay bulshadii ay u dhammaato cadaalad la helo rag iyo dumar loo sinaado dumarku ina tayadooda iyo waxbarashadooda iyo in la dhiirigeliyo wacyigelintooda in kor loo qaado bulshada ku dhisan warbixino badan iyo cilmi baadhisno badan baa waxa ay tibaaxayaan in dumarku haddii income-kooda kor loo qaado inuu kor u kacayo malnutrition-kooda marka still waddankeena haddii ay hooyo umul arooraysa ay jirto uma malaynayo in weli laga shaqaynayo in dumarkii kor loo qaado developmentkii dumarku uu jiro maadaama bulshadii halka ay ku dhisan tahay ama halka ay ka aasaasan tahay ee laga imanaya ay dumar yihiin UN Women warbixin ay ku daabacday page-keeda Twitter-ka ayaa waxay ku sheegaysaa like kartida dumarku halka ay gaarsiisan tahay in dumarka ku nool sub-Saharaa African countries-ka 40 bilyan oo saacadood oo waqtigooda ka mid ah inay ku bixiyaan inay ururiyaan biyo si ay dadkoogu ay u helaan aanay ugu dhimanin biyo la'aan taas waxaad ka garanaysaa kartida dumarku halka ay gaarsiisan tahay halka siday uga fikirayaan inay bulshadoodu ay horumarto haddii dumarka la siiyo chance haddii la siiyo fursad ay kaga qayb qaataan talada dalka waxaan ogahay in dhibaatooyin badan oo maanta dumarkeena dabraya hadday tahay xagga shuruucda hadday tahay xagga dowladnimada hadday tahay waxyaabaha basiga ee dabraya hoggaanxumada qaarkood ay keenayso inay ka jawaabi lahaayeen waxyaabaha yaryar ugu yaryar ay ka mid tahay dumarka ka jooga maxaan ku dhahdaa suuqa waxaad arkaysaa suuq baad tegaysaa maxaan ku dhahdaa ma jiro meel ay dumarkii facility-googa ay u helaan waxa wasaaradaheena ku yaala dhammaantood masaajidada ma jirto masaajid keliya oo ay dumarku ay kaga tukadaan ma garanayaanu in dalkeena laga aqoonsan yahay in dumarka salaada laga dhaafay haddaba wasaaradii oo lagaga shaqaynayo oo shaqo ka socoto laga yaabo inuu xeerkan weliban xeerku dhigayna labada duhurnimo shaqadu dhammaanayso haddana salaadii duhur oo soo gashay wasaaradda arrimaha bulshada inaga soo horjeeda dumarku kuma tukadaan masaajidkooda waa dhibaatooyinka faraha badan leh ee waddankee dayacanay yaala yihiin inay dumarku ay ka fikiraan oo ay ka jawaabaan bal intaan halka sare la isla gaadhin inay baahiyaha hoosaadka ay buuxiyaan oo ay ka mid yihiin in xataa womeniska dumarka yaryar ee ganacsiga ugu badan dhaqaalaha ugu badan dalka soo gelinaya in la dhiirigeliyo waxay ahayd inay dowladdu siyaasada ka yeelato inay dumarka yara tamaandhada iibinayo maalin walba 2,000 shilin lagu khasbayo inay maalgeliso ay iyaga laftigooda ay ka raadiso inay wax badan ay waddanka kusoo kordhiyaan inahaasaan kusoo gabagabeynaya mahadsantihiin waxaa iyaduna kelmadii dambeysay hal erayna odhan doonta amuun deetana saasaan kusoo gabagabeynaa barnaamijka dilaad kolley maanta dhan waxaynu ka hadlaynaa horumar waxqabad marka run ahaantii waxaynu ognahay waxqabadku wuxuu ka yimaado qofka markuu isagu naftiisa wax u qabto marka anigu qodobka aan doonay inaan kusoo gabagabeeyo waxa weeye inta badan waxaa la yidhaahdaa jidhka saalimkaa buu ku jira caqli saalim marka waxaan dhammaan hablaha inkastoo wiilashu aada ugu wanaagsan yihiin hablaha ku dhiirigelinaya inay jidhkooda ka shaqeeyaan jimicsigana ay isla ogaadaan aad baan mahadsantihiin aad baad mahadsan tahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan caawa martida caawa aad baad mahadsantihiin waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inaad sii wadaan shaqada u qabanaysaan waddanka shaqada u qabanaysaan haweenka iyo dhammaan bulshada Somaliland idinkuna dhammaantiin aad baad mahadsantihiin caawa nagala soo qayb gashaan martidan aadka u quruxda badan leh. Wassalaamu calaykum.